Safiirkii hore ee Turkiga u fadhiyay Soomaaliya Dr. Kani Toram ayaa waxa uu si adag kaga hadlay aqoonsiga ay raadinayso maamulka Somalilan. Waxa uu soo saaray qoraal uu ciwaan kaga dhigay haddii qabiil dowlad noqon karo Afrika waxay yeelan lahayd 500 oo dowladood. Wuxuuna si toos ah uga hadlay aqoonsiga ay sida weyn u raadinayso Somalilan, isagoo yiri madax-bannaanida Somalilan ma ahan mid waaqici ah marka laga eego dhinacyo kala duwan. Waxa uu sidoo kale sheegay inuusan jirin farqi u dhexeeya Soomaaliya iyo Somalilan, isagoo caddeeyay inuu taageersan yahay in Jamhuuriyadda Soomaaliya aan la kala jebin karin, Soomaaliyana ay tahay hal qura. Qoraalkiisa ayuu sidoo kale waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan aqoonsiga Somalilan. Waxa uuna sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in ay tahay Soomaaliya mid qura ah, inay ka jirto hal dowlad oo ah dowladda Soomaaliya. Safiirka ayaa qoraalkiisa waxa uu ku daray dhibaatada ugu weyn ee Somalilan iyo Soomaaliya ka jirta waxa ay tahay magaalada Muqdisho. Haddii Muqdisho siyaasadeeda iyo amnigeeda la xalliyo, Soomaaliya inteeda kale way hagaagaysaa. Somalilanna waxay noqon doontaa dowlad awood leh. Laakiin Somalilan in magaalada Muqdisho ay ku eedeyso dhibaatooyin qaraxyo iyo dhibaatooyin kaleba ma ku helayso madax-bannaani, ayuu qoraalkiisa ku daray. Qoraalka uu soo qoray safiirkii hore ee Turkiga u fadhiyay Soomaaliya Dr. Kani Toram ayaa waxaa si weyn kaga falceliyay qeybaha kala duwan ee bulshada, iyagoona dadka qaar si weyn ugu taageeray go'aankiisa iyo hadalkan ku aadan arrimaha ku aadan madax-bannaanida Somalilan, halka qaar kale ay ka soo horjeesteen.